فيصل عبد محمد واد وكيلو تهي baan doonayaa inaan u guuriyo inanta la yiraahdo Shaadiya Baasha Cilmi Faarax oo meerkeedu yahay $10,000 iyo xajka oo la geeyo wakaalada ma u aqbashay inankaaga aad wakiilka u tahay inanta inaan u guuriyo oo aqbala dhaqameed ama xaflad dhaqameed oo aynu maanta doonayno inaynu ka yagaleelno guri islaam ah gurigaas oo waxa weeyaan ay yagaleeli doonaan mudane Faysal Cabdi Maxamed iyo Marwo Shaadiya Baasha Cilmi dhaqanku yahay tolka soo doonay inanta ayaynu ku wareejinaynaa barnaamijka si ay waxa weeyaan tolkooda kale ay u weydiistaan madashan dilan ee boqran waayeelkii ikhtarta isugu timi aad baan ugu faraxsanahay waxaanu ardaadhigu nahay oo aan ka doonayaa nasiisaan Shaadiya Baasha Cilmi oo aan u doonayno Faysal Cabdi Maxamed waxaan rabnaa in la siiyo intaasoo naloo meheliyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi waxaan ku soo dhaweynayaa Suldaan Ismaaciil Nuur Wacays sidoo uga ajiibo codsiga loo soo gudbiyay ee tolku soo gudbiyay شادية باشا علمي فارح وابحنا ويد السن مهر كينا وراعنينا وحوي انت اسو انت وي انت كلا بيش هالكيدي ولا جايه وحوي شوف عقلك هذا الكيس شاقي انت waa gudoominayde انت waa gudoomin انت waa halkaas waa 8 milyan oo Suuriyadii 8 milyan $700 weeyaan oo Suuriyadii weeyaan halkaasna waa $3,000 oo waa yaradkii odaga yarada hortii weeyaan $3,000 waa yarada hortii odaga leh ma sha Allah Allah idin barakeeyo waa guul bismillaahir rahmaanir rahiim Cabdi Maxamed Hiirad inanka la yiraahdo Faysal Cabdi Maxamed oo aad wakiil u tahay baan doonayaa inaan u guuriyo inanta la yiraahdo Shaadiya Baasha Cilmi Faarax oo meerkeedu yahay $10,000 iyo xajka oo la geeyo wakaalada ma u aqbashay inankaaga aad wakiilka u tahay inanta inaan u guuriyo oo aqbala guurka ma sha Allah walaalayaal caqdigii waa inoo dhacay inanka iyo inanta ama mudanaha iyo marwada aynu maanta madashan sharafta badan leh aawadood isugu nimi waxaynu ugu ducaynaynaa awalan ducada u jideeyay nabigeenu calayhi salaatu wassalaam baaraka allahu lakuma wa baaraka calaykumaa wa jamaca baynakumaa fii khayr ducadaasoo aruntii duca aad u qiimo badan marka hore waxaan si kal iyo laaba aan u soo dhaweynaynaa reerkan aanu ardaaga ugu nimi ballaadhan ee ku talagalka wanaagsan iyo sida habboon ee aanu diyaargarowga ugu soo ahayn iyaguna na siiyey wixii aanu ka doonaynay oo ahaa Shaadiya Baashe Cilmi Faarax waanu gudoomanay si sharaf leh baanu u gudoomanay
markaanu nahay qoladii cismaan idlaanu ka hadlayaa kulliba malaa waa noo kow waa sii wadaynaaba ila tahay ubad khayr qaba iyo ehel wanaagsanba allah ka dhigo barakaad aadatan waxaan kusoo dhaweynayaa jiif caaqil axmed yuusuf kusoo dhawow guurka weligeed iyo allaheed siyaasaanu reerkan isu guursanaynay labada dhinacba aanu qolaba qolo u guursanaysay waa kuma barto oo kuma daayo iyo ku bartay oo kuma noqdo marka waxa inay wanaagsan tahay aad ku garanay dee guurka isku noqnoqonayay sidaa weeye tolkuna waa sidaa iyada oo maantana xafladan qiimaha leh aad baan u soo dhaweynaynaa dadkaana waxaanu leenahay inankaa iyo inantaa allaha barakayo wiil iyo caano allaha ka dhigo wiil iyo caana allaha ka dhigo allaha barakayo waxaan kusoo dhaweynayaa jiif caaqil xasan godane kusoo dhawow waxaynu isugu nimi meherkaa aynu isugu nimi waa wixii sharciga ahaa ee haddii laba kuuraya aynu isugu iman jiray waana waxa ugu khayr badan ee la isugu yimaado war kale male waynu u ducaynaynaa waxaynu ugu ducaynaynaa ducada islaamka ayaynu ugu ducaynaynaa waxaan kale ugu ducaynaynaa in ilaahay kuwii in ilaahay isku asturo wiil iyo caanana siiyo wasalaam caaqil muuse axmed kusoo dhawow waxaan salaamayaa goobtan bilan ee sharafta badan ee uu ka dhacay aas-aaska qoyska islaamka ah halkan waxaa ka furan duco in loo duceeyo baa ka furan ducana waxaan kusoo koobsanaynaa ducadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam baaraka allaahu lakuma wa baarak calaykumaa wa jamaca baynakumaa fi lkhayr allaha barakeeyo reerka dadku waxaa laga hadlay xidid arintani waa qoys isku mida weeye intana waynu raacinaa une waa qoys isku mida wada dhashay xididnimaduna wixii baan soo dhaweynay guurkii baanu soo dhaweynay mooyaane waxaynu nahay qoys reerka allaha barakeeyo kii barakaysan allaha ka yeelo qoys islaam oo wacan allaha ka yeelo kusoo dhaweynayaa jiif caaqil maxamed cismaan liibaan falyatafadal waxaan soo dhaweynayaa qolada ka timi xagga galbeedka ee ardaadhiga ahayd ee dhaqanka u socotay gabadha doonaysa waxaan kaloo soo dhaweynayaa shirkan ballaaran ee isu yimi iyo xafladan aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa salaanta islaamkaan ku salaamayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaanu arrin dhaqan baynu isugu nimi arrintuna waxa weeye soo jireen sidaa la sheegay habluhu labada dhinacba inkastoo qolada reeriisa haddeer badsanayso annuna waa ka dabaaqi doonaa xagga jaradag baanu tegi doonaa iyagaa hadda badsaday waa soo jirtay weligeed aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay ilaahay ha barakayo reerka dhaweynayaa caaqil aadan abakor falyatafadal caaqil waxaan leeyahay reerka haddii aanu yegleelay reerihii ka horreeyena waa la garanayaa horena waa loo sheegay kanna sidii oo kale waxaanu leenahay waaba ka dhow yahayo inantan waxaa dhashay inan reer idla oo cismaan idla baa dhashay inantaasi labadeedii carruura waaweynaa labadiiba garadag bay uga guurisay way ku hagaagsan tahay oo aada baan ugu hambalyaynaynaa waayo dadku hadduu dadkiisa iyo dalkiisa jecel yahay waa lagu ammaanaa halkan waxaanu leenahay sidii odayaasha horeba u sheegeen waa duco aad iyo aad baa reerkaas labadan reer ee ibraahim xasan iyo cismaan iidle reeraha way yihiin oo cidina isu sheegi mayso laakiinse waa labada yada laandheero oo cismaan iidle reer idle waa badh ibraahim xasanna annaga waa badh bay yihiin marka waa laba laandheere inkastoo ay markii hore isku horreeyeen reerkaa la yidhaahdo bayle oo iyagu cadan iyo magaalooyinkan iyo meelahana iska heli jireen waa laba reer magaal bay ahaayeen maantase dee laandheerayaashii oo cismaan iidle iyo ibraahim xasan bay joogtaa waana isku mid oo reero laysbarayo oo laleeyahay hebel iyo hebel iyo hebel baynu nahay maaha
waxaan la horta qoyskaasi kii diin iyo dad iyo dunyaba bixiso ilaahay ha ka dhigo kii sidii hore ay ablii hore keen isugu soo jiidi jireen ilaahay ha ka dhigo kuwii keen isugu soo jiida waxaan soo sheegayaa halkan uga sheegayaa maanta inay Muuse Abakar ugu sarreeyaan reer Idli horta waa inay doosi sheegnaa haddaanay ogeyn waxa jirta waxay maanta leeyihiin wasiirkii eed ahaa bay leeyihiin waxay leeyihiin gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka waxay leeyihiin suldaankii Barre Cabdiraxmaan waxay leeyihiin janankii ciidanka bari horta inta kale waa iska qarinayaa horta intaasaan sheegayaa haddaba waxaan leenahay reer Idlow ما يشاقي ما ينك وحكا بدن باشراء أفرتاد درشة وحلينها أفرتاد درشة كوين قرادك مدح قرن باب مريسان إن والد السوقية هدي راب كدميل كقادوا إلى عاد عسية إلى يتضب وصاب من نقضه هدي قرادك قولا كون كدان نغن ما يسمى مدح لكن سوى حل الدنيا دكذين لنا هاي ودوين بين لنا دقموين بين لنا دلب اللارن بين الموسى بكر هبرش على بريلا إذن كيد السوقيسة وعلى الدنيا دل كودنينا كون قدام على الدنيا عاقل هذا بكر حتى تنعم كسر وين يا أضي محمد ساچن إدلة كسر دو ورتمدش شربت له لقن كاهل يسويمي الرير كيسة هي تدكوا وضع الشيء ويسويمي والسلامية متى كله مش عاقل باكر دقاقي أنا صاحبنا هذا تتكاهدو كلا يقان وردا بكرو هذا الكاسو على هذا أنا بكرو هذا الكاسو حكومة رأسنا ميلان مدرسة أنا هين دقنكا يا إن أما عرق أما نوجو يدان أما كردك نوجو تماتان يل كذا مرة توصل عاي وقاضي وحنا وحشنا وقاضرنا حتى إذا نقول حمنا نقول حريرتين وقاضرنا رالينا وكنا هاي مرقاش والسلامة يا شربت عليه سقوطي بماشى كور كنا أول بواشير تروس عن تروس رجع ربع صدوش شيء وحنقول كدر يدعو إلهي الله بدأ قفه أين يقلل إنه لبدي يسكو إلهي يسكو خيرين إلهي كدقو ويلي عن النقطة واسده السلام عليكم حضرتنا waxaan ku soo dhaw Saalax Maxamed Muuse ku soo dhaw xafladan quruxda badan inanta lagu bixiyay iyo inanka la siiyay reerka waanu u ducaynaynaa aad iyo aad baanu ugu ducaynaynaa Allah barakayaanu leenahay aad iyo aad ilaahay ha u barakayo sidaasaanu ugu ducaynaynaa aadu maatan yahay chief caaqil ducada iyo waxweeyaan dadana ka fiican oo nasiiyay haddana waxaan ku soo gabagabeynayaa caruuska aabihii Cabdi Maxamed Heerad isagana sidoo ubadkiisa uu ugu sii duceeyo mar labaad iyo mar saddexaad ba ilaahay ma mahadle halkan waxaan ka salaamayaa bulshaweyntan dhowrka reer ah ee halkan sarafta arooskan labada caruur ee aan aabba u ahay isugu yimi ee soo sharfay aad iyo aad u soo qiimeeyay waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu ilaahay ay isu barakeeyaan uleen ilaahay ay isu barakeeyo oo ilaahay ay isku asturo oo ilaahay dad iyo dunyaba ha u barakeeyo ilaahay reerkii jira ha noqdo ilaahay waxaynu uga baryanaa wax khayr leh intaa ka bacdi waxaan islahaa qolyahanu xididka reer cerigaba oo idinka badsadeene dee waxaan isleeyahay dee waaba kala joogtaan markii wax la sheegay awal dagaal cumuruqba igu jiro waxaan lahaa wallaahi waa la idinka badsado reer cerigaba inantaa ismaaniidle iyo inantaada oo duruxminku qababa wallaahi waa la idinka badsadaan lahaayee dee waxa la sheegay reero badan oo hawsha ay dhex martado reerahan ay dhex martay marka dagaal cumuruqi halkaas oo igaga baxay marka waa idin salaamayaa boqolkiiba boqol aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa sida sharafta leh wanaagga leh ee halkan uga soo qayb gasheen ee aad noo siiseen
dad baa ugu qiimo badan wax la isa siiyo dad baa ugu qiimo badan marka aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa baashana markaan la kaftamo baashow inankaas waa inanka inamadayda waa 17 inano waa kii saddexaad xagga marka caruurta la isku darana waa qofka lixaad waa nin labada reerba ku filan labada reerba iyo tolka kaleba waa nin ku filan waa nin mutacallina qawadi maysid تسلا تقول كوي ماسو رسولك صلى الله عليه وسلم بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في الخير الكاسينو تشوكسا والسلام عليكم